halkani waa magaalada Muqdisho waxaan kula kulmay kooxdani oo ah dhalinyaro dhakhaatiir ah isla markaana raba inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyaan qalliin caafimaad kuwaas oo adag tahay in laga sameeyo gudaha dalka. kooxdan dhalinyarada ah ee dhakhaatiirta ah ayaa waxay rabaan inay sameeyaan qalliin caafimaad oo ay ku rabaan in waalidiinta iyo dhammaan dadka waayeelka ah ee Soomaalida kuwaas oo awood waayay sabab caafimaad socodkoodii ay dib ugu fudeydiyaan sidii ay socodkooda dib ugu bilaabi lahaayeen. haatan waxay bilaabayaan qalliin qaadan doona saacado badan kooxdan dhalinyarada ah ee dhakhaatiirta kuwaas oo kaashanaya dhakhaatiir ajaanib ah waxaana ay jilbaha ka bedelayaan bukaan waayeel ah oo awoodi waayay inuu socdo muddo kadib dhibaato ka soo haleeshay jilbaha. kani waa Dr. Cawil oo ka mid ah dhakhaatiirta dhalinyarada ah ee lafaha kuwaas oo ka howlgala isbitaalka kalkaale magaalada Muqdisho waxaana uu sharaxayaa sababta ku kaliftay in kooxdan dhalinyarada ah ay sameeyaan qalliinada bedelida jilbaha kana sameeyaan magaalada Muqdisho. horta isbitaalka kalkaal in jilblistu wuxuu bilaabay adiga muddo 6 sano ka hor waxaan ku dhalisay inaan bilaawno in ummadda Soomaaliyeed u baahan yihiin in qabaan xanuunada ku dhaco jilbaha dadka qaar u yaqaan looyaha arjadu ka dhamaato u baahda in la bedelo soo marka arag dad badan oo kicila oo jiifo oo aan awoodin inay dibadda aadaan si u helaan maaragtay qalliinka bedelista jilbaha simaha marka aragnay inaan ka bixi karin fiisihii tikidkii wixii waxaan u soo degelin inaan keeno wadanka gudihiisa ku war waxaan ku bilaabnay si campaign ahaan in yani dhakhaatiir dibadda ka keeno oo la sameeyo. tanina waa falcelinta ay kala kulmeen guud ahaan bulshada Soomaalida ah kadib markii ay sameeyeen qalliinada jilbaha guud ahaan dhalinyaradani dhakhaatiirta maxaa la hado tan waa bilow oo ah inaan keeno bedelista jilbaha simaha waxaan qorsheenaynaa in aan helno ku dhawaad waxyaabaha dibadda ay u aadaan dadka Soomaalida aan yani qalliimada sida seedaha oo kale bedelista jilbaha maxaa la yiraahdaa bedelista xusulada garbaha jimcaha garbaha kaleeto oo hadda wadanka aad loogu heli karin inaan suuro galino. muuqaalkani ayaa ah daawada midna tusaya mid ka mid ah bulshada Soomaalida ah oo qalliinka jilbaha ay kooxdan dhalinyarada ah ee Soomaalida ay ugu sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho. tanana waxay kor u qaadaysaa rajada heerka caafimaad ay sameynayaan dhakhaatiirta Soomaalida ah gaar ahaan dhalinyarada. qalliinada noocan oo kale ah oo haatan lagu sameeyo lacag badan balse haatan kooxdan dhalinyarada ah ay ka sameeyaan isbitaalka kalkaale ee magaalada Muqdisho iyagoo kaashanaya dhakhaatiir ajaanib ah ayaa waxay kor u qaadi kartaa rajada bahda caafimaadka iyo bulshada Soomaalida guud ahaan. muddadii aan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxaan la kulmay dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho oo dadaal weyn ugu jira sida ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka guud ahaan ee dalka gaar ahaan dhinac walba. wuxuuna waa Ayuub Show lana socon muuqaal cusub.